ogtahay in looga ganacsi uu noqon karo sababta ugu weyn ee loo aqoonsado ayaguna kalsoonaada ama la ilaawo. Saaxiib yaal kusoo dhawaada Sudays Creative. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa sirta ka dambeysa samaynta logo professional ah laga bilaabo markuu macmiilku kuu soo diro brief ilaa iyo aad ka deliver garanayso boqolkiiba boqol. Waxaan ku muujin doonaa tallaabo kasta oo muhiim u ah naqshadeynta sumad qiimo leh, mid si fiican u matasha ganacsiga u hadasha. Cashirkan kuma koobna sida loo sameeyo logo, balse wuxuu kuu furayaa maskaxda designer-yada xirfadlayaasha casriga sida ay u fikirayaan iyo sida maaragtay u shaqeeyaan una qorsheeyaan uguna jawaabaan baahiyaha dhabta ee macmiilka. Ugu horreyn waxaan ku bilaabi doonaa briefka markaasi uu client-ga inoo soo diray. Designer kasta oo guuleysta uu ogol yahay in hal sir markaad fahanto baahida macmiilka waxaad abuuri kartaa nashqad kasta oo qurux badan. Briefka maahan waraaq qoran oo caadi ah, waa furaha maskaxda macmiilka oo meesha aad ka ogaanayso waxa uu rabo, waxa uu neceb yahay iyo sida uu rabo in dunida u aragto ganacsigiisa. Haddii uu macmiilku soo dirin brief rasmi ah, adiga ayaa mas'uul ka ah inaad weydiiso su'aalo aadna fahanto. Waa maxay yoolka sumadda? Muxuu ganacsigaadu qabtaa? Yuu adeegaa? Waa kuma cidda la tartamayso? Competition-kooda, mission, vision. Ha bilaabin design ilaa aad si buuxda u fahantid dabeecadda ganacsiga iyo ujeedada sumadda. Haddii aad taas iska nirto, waxaa dhici karta inaad hal logo aad 10 jeer lagu soo celiyo sababtoo ah adiga iyo macmiilka oo aanan isfahmin. Haddii briefka mugdi kaa galo, design-kana wuxuu kaa noqon karaa mid mugdi ah. Isku day markaa inaad fahantid briefka. Briefka wuxuu kaa badbaadinayaa waqti lumiska, isfahan la'aanta, sixitaanka joogtada, waa aaladda ama waxaa is dhihi karaa waa maaragtay sirta ugu horeysa ee xirfadle kasta u baahan yahay inuu ka shaqeeyo. Daba commentiga inoogu reeb, ma isticmaashaa brief markaad design sameynayso mise si toos ayaad maaragtay u gudagashaa design-kaaga. Haddaba markii aan soo fahanay ganacsiga, yoolkiisa, sumadda iyo maaragtay competition-kiisa markii aan soo fahanay, step-ka xiga ee aan u gudbi doono waa inaan baarno research aan sameyno. Qaar badan oo designer ah waxay iska dhaafaan tallaabadan sababtoo ah waxay u arkaan waqti lumis, laakiin dhab ahaantii research-ka waa meelaha laga helo fikradaha ugu adag ee design-ka. Waxaa laga yaabaa inaad dhayalsanayso, laakiin xusnow, hal-abuurka casriga wuxuu inta badan ka bilowdaa baaritaan fiican. Qaybteena xiga waxaan u gudbi doonaa sketching. Sketching-ka qalinkaaga qaado ka hor intaadan software-ka furin. Sababtoo ah sketching-ka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si xor ah u fikirto, u tijaabiso, oo aad maaragtay u burburiso fikradaha aan shaqaynaynin inta ku lumin waqtiga. Sketching-ku ma ahan inuu qurux badnaado, ujeedadu waa inaad dejiso qaab dhismeed guud ee fikradda, sida icon-ka u ekaan kara, fonts-ka, iyo sidoo kale qaabka loogada inay noqonayso ma combination ba, ma wallmark ba, ma lettermark ba. Dhammaan intaas waxaa ku ogaan kartaa sketching-ka. Kasoo dhimaanay oo aan soo sameynay concepti kala duwan ee loogada markaan soo sameynay ama waa step-keeni ugu dambeeyay ahaa oo aan sugaynay inaan maaragtay loogada u bedelno qaab vector ah oo looga dhamaystirna u bedelno. Ugu horreyn meeshaan cabirka waxaa iska soo dooran doonaa cabirka 19 by 20 by 10.8 dooran doonaa. Waxaa magaca bixin doonaa logo, kadib waxaa leeyahay doonaa create. Waxaa soo gashan doonaa sawirkii, kadib markaa sawirkaa soo gashano oo sawir ka qaadanay qoraalka yacni sketching-ka soo sameynay sawir ka qaadanay kadibna maaragtay halkaan soo gashanayna kadibna waa factorize gareyn doonaa insha Allah. Marka aan factorize gareyno insha Allah habkaan maaragtay aan loogada factorize gareynayo pen tool-kan aan ku shaqeyn doonaa. Pen tool-kan iyo maaragtay ayaan ku shaqeyn doonaa iyo shape-ka
insha allah ellipse toolkaas waxaan ku shaqeyn doonaa marka ka socdo laashan. qaabab kala duwan aan u sameynay haddii noqon lahayd colorska, fontska, sidoo kale vertical
iyo maaragtay horizontal iyo maaragtay iconska markaan waxaan kula talinaa mar walba oo looga sameynaysid in ugu yaraan sabti inaad samaysid oo si macmiilku uusan ugu wareerin adigana aadan ugu wareerin haddii aad ka dhigi kartid 3 waa optional way fiican tahay laakiin probably 2 ka badan markaad yacni kala macmiilka aad u diraysid sababtoo ah wuu ku wareeri karaa macmiilka laakiin 2 option haddaad siisid mid ka mid ah dooran doonaa waan isbarbardhigi doonaa labada farqiga u dhexeeya iyo midda soo dhaweynayso marka insha allah cashirkeena marka intaas ayuu ku egyahay runtii haddii cashirkan wax badan aa ka faa'iiday commentiga noogu reeb kuna soo bir channelka insha allah lana soco muuqaalka xiga insha allah muuqaalka xiga waxaa ku samayn doonaa insha allah sida aad maaragtay loogada aad samaysay presentation aad u samayn lahayd haddii aad xiiseynayso cashiradan haddii aad xiiseynayso brandingka falan la soco cashirada muuqaalkana like saar kuna soo bir channelka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.